interview shaqo loogu guuleystaa adigoo aan khibrad badan lahayn ma ogtahay in Soomaali badan ay shaqo waayaan ma aha khibrad la'aan balse ay ku dhacaan interviewga haddii aad tahay arday jaamacad ka qalin jabiyay qof khibradiisu ay yar tahay ama qof shaqo raadinaya muuqaalkan adiga ayuu kugu haboon yahay aadna waa ku anfacaya maanta waxaanu ka hadli doonaa sidee interview shaqo loogu guuleystaa adigoo aan khibrad badan lahayn qodobada aan ka hadli doono waxa kamid ah horta interviewgu muxuu yahay ama waraysiga shaqada ee qofku markuu imtixaan ka soo gudbo la mariyo ama shirkadu inta badan ba hadda in kastoo imtixaankiiba laga gudbay oo qofka toos loo geeyay interview toos loo mariyo meeshii imtixaan qoraal laga qaadi lahaa ama inta badan sida macruufka ay la sameeyo in qofka imtixaan qoraal iyo laga wada qaado interview laga wada qaado waana boqolkiiba 80 dadka imtixaanka ka soo gudba meesha ay ku fashilmaan waa interviewga muhiimaduna waxay ahayd qofka inuu shaqada helo marka interviewga waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan arki doono waxa kamid ah maxaa keenaya in interviewga inta badan dhalinyartu ay ku soo dhacaan qodobada ugu muhiimsan ee keenaya dhicitaanka iyo interviewga qofka uu ka gudbi waayo maxaa sidee ugu guuleysan karaa interview waxaan arki doonaa 10 su'aalood ee ugu badan ee macruufka ah ee la isweydiiyo interview kasta oo aan ka soo xiganay runtii khubaro isku jirta Soomaali iyo ajaanib runtii aad takhasus u leh qaabka shaqo qaadashada ama qorista shaqada runtii aad muddo ka soo shaqeynaya 10 su'aalood waxaan arki doonaa jawaabahooda sida ugu haboon aan arki doono sida ay khubaradu dabcan ay ku jawaabayaan ama laga rabo qofku inuu ku jawaabo ma laga tixgelinayo sidoo laga rabo qofku inuu ku jawaabo horta ugu horreyn waxaan arki doonaa waa maxay interview horta interview waa maxay interview waa waraysi rasmi ah oo u dhaxeeya shirkad ama hay'ad iyo qof shaqo raadinaya hadiyo goor interviewgu waa waraysi u dhaxaynaya cidii shaqada bixinaysa iyo cidii shaqada doonaysay sida loo qiimeeyaa interviewga waxa la qiimeeyaa qofka aqoontiisa xirfadiisa dabeecadiisa sida shaqada uu ugu haboon yahay ayaa inta badan xoog la saaraya interviewgu ma aha imtixaan lagu cabsi gelinayo qofka waa fursad aad naftaada ku soo bandhigi karto aad naftaada ku iibinayso interviewgu waxa qofka fursad loo siinaya inuu naftiisa soo bandhigi karo si uu u muujinayo markaa dareemihiisa uu soo muujiyo si loo ogaado qofkan ma ku haboon yahay shaqadan iyo kuma haboona marka interviewga la galayo ama inta badan interviewga in lagu dhaco waxyaabaha ugu badan ee keena waxa kamid ah 8 qodob ayaa sabab u ah in qofku interviewga uu ku guul dareysto qodobka koowaad waxa weeye diyaar garow la'aan qofku aan soo diyaar garoobin dabcan interview marka aad galayso waxa la rabaa qofka hadii laba bari ama maalin ka hor loo soo sheegay inuu sii diyaar garoobo inuu diyaar garow fiican inuu sameeyo laga rabaa diyaar garow la'aantu waxay keenaysaa qofku inuu ku fashilmo marka had iyo goor qodobka koowaad ee fashilka keena waxa weeye diyaar garow la'aan qofka isagoo suuqa iska wareegaya buu toos u tagayaa meeshii waxa weeye interviewga isagoo aan diyaar ahayn qodobka labaad ee keena marka qofku inuu interview ku falgaro waxa weeye kalsooni darro qofkiiba inuu cabsado oo su'aalihii la weydiiyay uu ka jawaabi waayo inuu jareeyay in mudnaanta wixii la weydiinayay ee laga rabay jawaabtooda inuu qofku hareer maro waa kalsooni darro qodobka saddexaad ee keena waxa weeye in aan la aqoon ama qofku uusan aqoon meesha uu shaqada ka soo doontay shirkadan ama ciddan shaqada bixinaysa inuusan wax aqoon u lahayn waa dhibaatooyinka ugu badan su'aalaha la isweydiiyay waa arki doonaa waxa kamid ah maxaad ka taqaanaa ama maxaad naga taqaanaa shirkadan maxaad ka taqaanaa marka waxa muhiim ah intaadan waraysiga shaqo gelin meesha aad shaqada ka doonayso inaad horta cilmi baaris ku samayso soo ogaato maxay qabataa shaqada sida loo qabto meesha ay ku taalo xarumaha ay leedahay waxa sarwana eegto wuxuu ku leeyahay imisa xarumood baan leenahay hadii ku yiraahdaan hadii waa kugu ceeb adoo meel shaqo ka doonayso inaad waxba ka aqoonay ceeb bay kugu tahay waana waxyaabaha fashilka keena qodobka afraad ee laga doonayo waxa weeye qofka kamid ah oo fashilka keena waxa weeye jawaab gaaban ama wareersan qofku inuu jawaabta soo gaabiyo si qofka inuu jareexayo kale ama qofka waraysiga qaaday inuu jareexayo kale qofka inuu jawaabta soo gaabiyo jawaabta soo gaabisa ama jawaabta oo ay noqoto jawaab markaa uusan qofku interviewerka ku wareysanayo uu fahmi waaya waxay keeni kartaa fashil qodobka shanaad waxa weeye in la yiraahdo ma aqaan mar walba su'aalaha lagu weydiinayo inaad ku jawaabto ma aqaan adigoo isla su'aashan iska leexi ama ay kugu adkaataa ma aqaantu waxay keenaysaa inaad fashilanto waana qodob kamid ah guul darrada qodobka lixaad waxa weeye hadal xad dhaaf ah ama aamusnaan labadaba dhib bay kugu keeni karaan qofku inuu iska daldalmo oo hadalkiisu iska bato dhaqdhaqaaqiisu bato miiska
marba xagga jirqansiiyo mar miiska kursiga riixo marba waa kan waxaasoo waxyaabo fashilka keena ayay ka mid ah qodobka toddobaad oo arki doona waxa ka mid ah labis aan habboonayn labisku waa meelaha ugu badan interviewga la iska qiimeeyo tusaale qofka wareysi shaqo galaya qofka wuxuu soo qaadanaya macawis buu iska soo qaadanaya ama dharaan meesha ku habboonayn ama isagoo aan si fiican u labisnayn ama aan shalaysnayn ama dharkiisu u diyaar ahayn waxaasoo dhan waxyaabaha fashilka keenay ka mid ah labiskuna waa munaad gooni oo waa la qiimeeyaa qodobka sideedaad ee keena waxa weeye cabsi iyo walwal badanna oo qofka ka muuqataana kalsooni darro keenta waxay keentaa in qofku uu guul darraysto qodobadaasoo la isku daray waa waxyaabaha keena qofku inuu ku guul darraysto inuu interviewga wareysiga shaqo inuu ku guul darraysto waxyaabaha keena weeye badanaa khibrad la'aantu wax saameyna ma leh laakiin sababta dhabta ah waa sababaha kor aan ku xusnay ee keenaya qofka inuu wareysiga shaqo uu ku failgaroobay interview wareysi shaqo loogu guuleystaa interviewgu waad ku guuleysan kartaa haddii aad samayso qodobadan kow diyaargarow hor leh inaad marka hore soo diyaargarowdo diyaargarow la'aantu waa wixii keenayay inaad ku fashilanto marka kow qofku wuxuu ku guuleysan karaa diyaargarow xoog leh inuu soo sameeyo labada maalmood saacadaha la siiyay inuu qofku soo diyaargaroobo waxa uu qofku waxyaabaha ku guuleysan karta waxaa ka mid ah fahamka shaqada aad dalbanayso in aad si fiican u fahanto aad si fiican u fahanto shaqadan aad dalbanayso inaad si fiican u taqaano shahaadooyinka aad haysato iyo khibradaadu inay waafaqayaan waxa shaqbooska aad soo dalbatay waa muhiim iyadoo adiga oo shaqada macnaha aqoontaada iyo khibradii aad leedahay ama shaqada aad qaban karto shaqo aan ahayn haddaad dalbato dee fashilka keenaysaa waxa kale oo ku guuleysan kartaa baro shirkadda cidda aad shaqada ka doonanayso marka hore research ku samee wuxuun macluumaad ka sii ogow shirkaddu waxay qabato waxyaabaha ay ka shaqeyso maxaan qabanaa haddii lagu dhaho hadda meesha aad wax ka doonanaysaa waxay qabato inaad taqaanaa qodobka waxa kale oo ku guuleysan kartaa waxa ka mid ah isku kalsoono mar walba kalsooni naftaada ku qab naftaada la iibinaysaa marka si aad naftaada u iibiso iyada kalsooni ku qab waxa kale aad ku guuleysan kartaa waxa weeye hadalka waa si cad u sheegto adigoo si edeb leh oo professional hadalka u gudbinaya lama rabo hadalkaagu inuu ku jiro jareex iyo hadal macnaha si u adag oo laga muusanayo inuusan ahayn ethics inuusan ahayn oo muuji rabitaan iyo diyaar ahaansho waxbarasho in shaqadan aad diyaar u tahay waxbarasho ahaanna aad diyaar u tahay niyad ahaanna aad diyaar u tahay shaqada aad doonaysana inaad muujisaa lagaa doonaya xusuusnow shirkaddu waxay rabtaa qof la baran karo ma aha qof wax walba yaqaan qof isaga la fahmi karo waxna fahmi kara waxna baran kara waxna ku soo kordhin kara rabaan marka taasina waxyaabaha keenaya weeye in aad wareysiga shaqo ku guuleysatana waa qodobadaas waxaan arki doonaa 10 su'aalood ee ugu badan ee interviewga lagu weydiinayo iyo jawaabahoodan u dhignay qaabka ugu kooban anagoo ka soo xiganana marka dad khibrad u leh wareysiga shaqo inay qaadaan su'aasha koowaad ee qofka marka ugu horeysa lagaga naxsado ee la weydiiyaa waxay tahay naftaada wax nooga sheeg ogsoonow CV-gaaga waa la hayaa shahaadooyinkaagina way hayaan xogtaadii way hayaan macnuhu waxa weeye marka ku leeyahay naftaada wax nooga sheeg inaad hebel tahay ama heblaaya tahay inaad intaasoo shaqada aad soo qabatay waxaagii CV-ga ku qoran yihiin naftaada nooga sheeg maxaa laga doonayaa marka waxaa laga doonayaa inaad si fudud si kooban jawaab yar oo kooban naftaada aad ka bixiso si fudud tusaale ahaan jawaabta ugu fiican waxa weeye waxaan ahay qof firfircoon jecel shaqada iyo barashada wax cusub una diyaar ah inuu shirkadda wax ku soo kordhiyo waad isbarta oo maxaa tiri waxaan ahay qof firfircoon jecel shaqada iyo barashada wixii ku cusub diyaarna u ah inuu shirkadda wax ku soo kordhiyo waa isbarta laakiin lama rabo inaad gasho magacaygu waa heblaaye hebel ama hebel waxaan soo dhigtay dugsiga hoose dhexe dugsigii sare waxaan warqaday ku qoran tahay no matter wax macna ma sameynayso inaad ku soo celiso wax macna ma sameynayso naftaada noo sheeg markuu leeyahay si yar oo kooban waa inaad u sheegtaa ama naftaada u sharaxdaa adigoo jawaabta kooban isticmaalaya su'aasha labaad ee lagu weydiinaya waxa weeye maxaad shaqadan u rabtaa shaqadan aad soo dalbatay maxaad u rabtaa hadda markiiba iskaga jawaabaan hooran caruurtu ay iga biilaan inaan biilkii iyo hadda nafteeda ku maareeyaan raba laga doonayo taas waa nolosha asaasiga ah ee qofku wuxuu doonayo weey laakiin su'aasha lagu weydiiyay si aqli ah oo professional inaad ugu dhigto oo la qaadan kara laga rabaa maankaaga la tijaabinaya ugu mar walba jawaabta ugu kooban ee ku jawaabi kartaa waxa weeye waxaan u arkaa shaqadan fursad aan ku koro kuna horumariyo xirfadayda balday saa u dhigto sida jawaabta loo dhigay fiiri
khibra maxaan niri waxaan u arkaa shaqadan fursad aan ku koro kuna horumariyo xirfadayda ma aad sheegin daciifnimo ah in shaqadan baahi ay ku haysto aad u liidato ma aad sheegin waxaad sheegtay in shaqadan aad ay fursad ku tahay kuna aad ku horumarin karto naftaada iyo xirfadahaaga waa jawaab loo qaateena waa jawaab reer magaalnimo taasina waa taa su'aasha saddexaad ee lagu weydiin karo waxa weeye khibrad ma leedahay marka koowaad hadaad marka uu gaar naftaada nooga war hadaad oran lahay waxaan ka soo shaqay wax ka soo shaqay su'aashu waa ku soo socota gadaal baa laga weydiin doonaa maxaa soo qabatay bal uu oranaya khibrad ma leedahay haddii aadan shaqo soo qaban maxaad ku jawaabi kartaa khibrad rasmi amalihi balse waxaan leeyahay tababar aqoon iyo rabitaan shaqo oo xoogan reer magaalnimo waad ka baxday khibrad rasmi amalihi balse waxaan leeyahay tababar aqoon iyo rabitaan shaqo oo xoogan haddii aad hore u soo shaqaysan maxaan oran karnaa waxaan leeyahay 5 sano oo waayo aragnimo iyo khibrad ah oo la xiriirta shaqadan waa ka jawaabtay haddaad wax ku soo dari kartaa khibradda inta aad shaqaynaysay waxyaabihi aad ku guuleysay achievementiga aad gaartayna waad u raacin kartaa xoogaa guulihii aad gaartay taasina waa taa khibrad malihi lama rabo khibrad qof aan khibrad lahayn ma jiro khibrad wax weeye ilaahu ma trade maalin aad ka qayb gasho ilaahu rabbi ma jaamacada maalin la shaqayso ilaahu wax walba aad qabato wixii aad soo qabatay ee activity ah haddaad galaas soo hogaamisay waad oran kartaa hogaamiyaan ahaa ama qof wax weeye saad marka wuxuun khibradda waa inaad sheegataa ha oran zero baan ahay su'aasha lagu weydiinayo afraad waxa weeye maxaa taqaanaa waxa taqaanaa wax nooga sheeg maxaa taqaanaa baa lagu oranaya maxaad ku jawaabaysaa waxaan leeyahay khibrad la xiriirta shaqada sida kombiyuutarka teamwork iyo isgaarsiin tusaale adiga oo shaqada khibrad waxa aad taqaana sheegaya tusaale aan waxaan ahay arday bartay cilmiga ganacsiga ama BBA business administration waxaan aqaanaa sida accountant ama loo xisaabiyo businesska sidoo kale waxaan leeyahay sida kombiyuutarka loo isticmaalo sida dadka loola shaqeeyo khibradda isgaarsiinta iyo communication kan leeyahay aqoonta kaliya shahaadada kugu talahay sheegine waxaad sheegtaa waxyaabo kale oo add value ah oo waxa wax ku daraya iyadana waa inaad ku dartaa sida inaad taqaano sida dadka loola macaamilo sida dadka teamwork loola shaqeeyo kombiyuutarka waxyaabaha digitalka wixii adigu kordhinaya shaqadaada moogta sababta way hayaan waxa aad soo baratay shahaadada ku taalaaya waxa aad taqaano laakiin waa inaad ku dartaa wax dheeri ah marka mar walbana jawaabtaadu ha koobnaato nuxur badan ha lahaato su'aasha shanaad lagu weydiin karo waxa weeye maxay yihiin awoodahaaga strengths maxay ku xoogantahay waxyaabaha ku xoogantahay nolosha waxyaabaha aad ku fiican tahay loo oranayo hebel ama heblaayo waa looga damayn karaa bal nolosha maxaad ku fiican tahay maxaad ku xoogantahay maxaa qof walba waxa jira wuxuu ku liitay iyo wuxuu ku xoogan yahay maxaa ku xoogantahay baa ku soo hormartay su'aasha amarka waxa leedahay waxaan ku fiicanahay shaqo wadaaga waqti maamulka sida waqtiga loo maamulo iyo inaan si degdeg ah wax u barto day waxa tiri waxaan ku fiicanahay shaqo wadaaga waqtiga sida loo maamulo iyo inaan ahay qof si degdeg ah wax u barta waxaad sheegtay waxyaabaha ay ku xoogan tahay ma oranaysid waxaan ku xooganahay kubadda inaan ciyaaro waxaan ku laacib baanahay waxaas lama rabo out of topic aan shaqada khusayno lama rabo waa inaad sheegtay waxaan ku xooganahay sida waqtiga loo maamulo dadka sida loola shaqeeyo iyo sida si degdeg wax loo fahmo ayaan ku xooganahay waxa markaa fiican oo positive ah leedahay qodobka lixaad waxa lagu weydiin karaa maxay yihiin waxyaabaha ay ku liidato weakness kaaga nolosha maxaad ku liidataa ha iska oran anigu waxaan ahay boqolkiiba boqol waxaan xalay dhalay nin qof fiican waxaan ku liidaa ma jiraan maya qof aan wax ku liidan ma jiro nolosha qof kasta meel buu ku liidaa meeshaad ku liidato sheeg maxaad ku liidataa hadda sidaad u sheegaysaa la rabaa si professional ah inaad u sheegto lama rabo waxaan ku liitaa ciyaarahan daawadaa waxaan ku liitaa waa dabeecad xumahay lama rabo waxa la rabaa wax weakness aad leedahay shaqadan aan waxba yeelin baa la rabaa haye maxaad oranaysaa mararka qaar waan ka fekeraa wax badan balse hadda waxaan bartay sida loo maareeyo tay saad uga baxdaan mararka qaarkood wax badan baan ka fekeraa tusaale wax badan baan niyadeyda soo dhaca wax badan waxa badan waa ruux caqabad weeyo qof wax walba ka fekeraya jacaylkiisa ka fekeraya hawl kale ka fekeraya shaqo kale ka fekeraya dareen kale ka fekeraya moogta negative waa tahay oo waxyo ay ku liidato weey laakiin gadaal ba ka simcaaneyn karta waxa leedahay waxaan bartay hadda sida wax loo maareeyo sida waxyaabaha mudnaanta leh loo kala hormariyo negative aad sheegaysaa gadaal waa ka qurxisa maarta reer magaalnimada waa inaad sheegtaa wax tusaale waxaan ku liitaa runtii luqadda ingiriiska oo kale si fiican uma aqaan laakiin hadda waxaan ku jiraa runtii horumarinta meel fiican bay imanaysaa negative yar baa sheegatay aad ku liidato positive na waa u gadaal baad uga raacaysaa hoos ka sii baa la dhahaa
marka wayna saasna aad weynaysa ha oran malaa'ig ba boqolkiiba boqol waxba iina malihi cid ka yeelaysa ma jirto qofan in lahayn ma jiro inta gurigeena aad la joogtay dabacadaha gaarka cid ku weydiin mayso ee waxa laga doonayaa in shaqadan wax yeelaysa in laga helaa la rabaa sida tusaale ahaan waa qaylaayo habeen ku dhamaan soo jeeda dad tiraado shaqadu waa ku diisay walaal wayna saa u ogaataa qodobka toddobaad waxa lagu weydiinaya waxa weeye sidee ula shaqeyn kartaa koox dad la shaqeynta sidee ku tahay inaad dadka la shaqeyso haye team work inaad la shaqeyso sidee ku tahay lama doonayo qof xirxiran oo waji bucur oo si aan lama rabo waxa la doonayo qof furfuran waqti team shaqeynta sidee tahay waa la oranaya waxaad ku jawaabaysaa waxaan jecelahay shaqada kooxeedka aad baan u jecelahay sababtoo ah fikrado badan ayaa wada imanayo dadku wax badan baa la isku biirinaya inaad jeceshahay baad sheegtay marna hore waxaan ahay qof xirxiran oo dadka aan la shaqeyn hore negative weeye shaqadu waa team work waa wada shaqeyn marka mar walba waxa laga rabaa inaad tiraahdo dadka waxaan ahay qof dadka la shaqeeyo oo furfuran oo bulshaawi ah qodobkaasna waa sidaa لمبر سيديد waxyaalaha lagu weydiin karo waxa kamid ah maxaa naga dhigaya annaga inaan ku doorano annaga maxaa nagu qasbaya bal noosha hebel wax isaga khaas u ah oo aan ku dooran karno noosha iyaga day su'aal bay su'aasha day waa adag tahay hadii lagu naxsado waa aad buu adag tahay maxaa naga dhigaya annagu inaan ku doorano maxaa ka dhigaya mudnaanta gaarka oo ay tahay inaan ku doorano maxay tahay bal noosha wax gaar kugu ah jawaabta fiirsa looga jawaabo waxaan ahay qof daacad ah dadaal badan una diyaarna u ah shaqada inuu ku guuleysto waxaan ahay qof daacad ah dadaal badan una diyaar ah in shaqada uu ku guuleysto mar maxaad sheegtay daacad inaad tahay dadaalkaagu inuu badan yahay diyaarna inaad shaqada ku guuleysato intaas marka waa wax lagu dooran karo runtii waa wax loo oran karo qof hebel macnaha ma qashay maxaa unique ku ah wax ku gaar ah nooshay waa sidaas maxaa ku saabsan ugu jawaabaysaa ha iska oran waxa weeye maxaad ugu dooranaysaa hadda waxaan ahay nin bala ka dhacday ama nin reehebel aan ahay ama waxa weeye nin bala ka dhacday wax badan bartay baan ahay faan lama rabo wax yar oo reer magaalnimo ay macaaneyn baa la rabaa su'aasha sagaalaad lagu weydiin karo waxa weeye ma su'aal ayaad qabtaa adaa lagu weydiinayo horta su'aal ma qabtaa waxa lagu weydiin kara kamid su'aal ma qabtaa ha iska oran maya su'aal ma qabo raali ahaado waxa ma qabo lama rabo qariibnimada lama rabo maya lama rabo waxa leedahay su'aal baan qabaa laakiin su'aal hada oran mushaarkayga misaweeye maxaan helaya waxa lama rabo maxaa su'aasha weydiinaysa maxay tahay sidee shirkadu u taageertaa shaqaalaha cusub dadka cusub aad qaadan kartaa sidee u taageertaa macnaha tababar ma siisaanayo waxa lagu arkayaa moogta qof xogaa reer magaalnimo ay doonaya wixii macnaha lagu kordhinayo in loo sheego mushaar iyo aqoon waxa kama hadalin moogta sidee shirkada u taageertaa shaqaalaha cusub tababar ma siisaa shaqada ma fahansiisaa macnaha waka marka si kuleeyeen tababar ma shaqaaluhu qaataan saanay qaataan laga jawaabaya si positive way waxa aad u weydiin si positive laga jawaabaya marka halkaasna waa muhiim su'aal negative iska ilaali iyo maxaan qaadan doonaa maxaa siin doonaa waxaas oo dhan iska ilaaliyadana su'aasha ugu dambaysa tomnaad oo runtii su'aasha ugu adag oo su'aalaha la isweydiiyo intaana u gudbin walaal hadii aad halkan soo gaartay runtii muuqaalka inta soconaya runtii waqti badan la geliyay waxaan ka codsanaynaa YouTube ka subscribe noo saarto like noo saarto hadii aad waraysi shaqo hore u soo gashay wixii kugu yaala su'aasha kugu yaabka badnayd ee lagu weydiiyo comment-ga noogu soo qor iyo dabcan wixii aad kaga jawaabtay hadii aad ku guuleysatana waad ku guuleysatay hadii aad ku guuldareysatana laftigeeda su'aali kugu adkaa waad ka bixi weyday comment-ga ku soo qor like tan hanaga ilaawan iyana subscribe noo saarto su'aasha tobnaad waxa weeye ugu dar waxa weeye waa imise mushaharka aad rabto waa lagu weydiinaya mushahar intee la rabtaa inaad ku siino mushaharku waa meesha ugu dhibta badan waa meelaha la isku gaado weeye ha oran si toos ah u oran waxa rabaa inta in la siiyo waxba ma rabo idinku ii sheega waxa ay siinaysan su'aalahaas oo mamnuuc bay kaayeen mamnuuc dhamaantood su'aalahaas waa su'aalo qaldan inaad tiraado inta isiiya adigu doorato haamaan baa lagu arkaya ma ogta waxba ma rabana waxa lagu arkaya qof yasan ma ogta adiguna ii sheegana lama rabo si uga jawaabaysaa marka sida saxda ah ee loo jawaabo wax weeye jawaabta ugu fiican aad ku jawaabi kartaa wax weeye waxaan jeclaan lahaa mushahar la jaan qaadaya shaqada mas'uuliyadda iyo siyaasadda shirkadda waxaan diyaar u ahay inaan ka wada hadalno bal ilaahay baa kugu dharshay jawaabta ka war lacag ma aad sheegan liidnimada ma aad muujin maxaa jiri waxaan jeclaan lahaa mushahar la jaan qaadaya shaqada haye mas'uuliyadda haye siyaasadda shirkadda iyaga laftigooda tixgelin baa siisay Soomaaliya shaqada aan qabanayo mas'uuliyadda shirkadda siyaasadeeda maarta waxaan diyaar u ahay inaan ka wada hadlo qadaalla waxaad ka raacisay wax go'aan inaad doonay
wada hadal wax walba ay tahay tani waxay muujinaysaa xirfad inaad leedahay kalsooni inaad naftaada ku qabto dabacsanaan iyo inaad ogashahay qof la gorgortami karo hadhow marka lagu qaato inaad tahayna waad sii sheegtay sababta shirkadu shuhaad ku weydiinaysa waxa weeye haddii aad qof lacag adag ama qof gacan ama qof waxaasaan rabaa leh haddii lagu qaato dibri shaqo waxay isku jiidaysaa lacagta isku jiidaysaa moogta marka halkan waxay rabeen inay ku ogaadaan war qofkan ay qaadanayaan ma yahay qof ku habboon oo shaqada qaadan karaan oo hadhow la gorgortano ogol waxna ay la fahmayaan gunaanadka waxaan kusoo ururinaynaa interviewgu ma aha cabsi ma aha khibrad kaliya kuma xirna waa diyaar garow waa kalsooni waa sidaad u hadasho waxyaabaha kale oo muhiimka waxa kamid ah markaad waraysi shaqo galayso waqtiga lagu qabtay ee lagu bilimiyay waqti ka horeeya meesha siita degdeg lama rabo adoo dhididaya adoo soo daal adoo hogo ayo ka muuqato sir iyo hoog ka muuqdo inaad soo dhig lama rabo xilli hore hadii lagu ballamiyo 10ka subaxnimo waxa 9ka iyo barba siita ama 9ka iyo 20 meesha shiisho mar allaala marka meesha waraysiga shaqo gashana ha sugin inta lagu yeerayo sidaas interview ugu jirtaa marba haddaad goobta soo gashay interview baa ku jirtaa ogow mararka qaarkood waxa dhacda in la eego qofka dabeecadiisa iyo habdhaqankiisa adigoo 10ka lagu bilaabay in lagu iman waaya dhici karta lagu iman waayaba deedna inta marba hareeraha istaagto marba tawana marna iyaga yaacaydo tiraan war waxaan wax oo shirkad ma ahayn wax bala ku dhacday weeye camera kugu socoto meel walba camera leedahay hadhowna dhag la yiraahdo hebel dooda idinku waa ni soo wacayna hadda ka hor nin bay ku dhacday waxa dhacday meel bay waraysi shaqo u galeen waxa la balmiyay 12 duhurnimo waa xilligii deeqadada ugu kulmay la balmiyay marka meeshii yimaadeen ciidamo waa u iman weyday nag waxa weeye dadku kuwa waa iska seexday waa iska hurdoodeen kuwa waa iska noqdeen laba dhalinyaro ah oo runtii waxa weeye dhaqaaq waayo si edab la meesha ay u soo fariisay si u fadhiyay goor dambe oo kowdi ay ahayd baa loo yimi markaas hal hebel kaalaya intiina kala naga raalahaada waxa weeye aad baa ma haysto wana soo wici doona oo hadii waraysi shaqaan ku balansanaan mee waraysi shaqadu waa dhamaad bal fiir looma yeerin lama hadlin waraysi shaqo soo looga qaaday dabeecadooda la qiimeeyay behaviorki labadii qof ee dabeecsanaanta iyo dulqaadka muujiyay baa la qaatay marka taa maskaxda ku hay ma interview marba meesha hadaa tagto waa ku bilowday xasuugin lagu soo fariisto su'aal lagu weydiiyo marka qaarkood wax dhici karta in su'aal ba lagu weydiin laakiin dabeecadaha wax laga weydiiyo marka waxaan rajaynaynaa in qof walba uu fahmay ama shaqo hore ka soo shaqee ama haddaba khibrad zero ah oo shaqo raadi inaad fahantay waraysi shaqo waxyaabaha runtii muhiimka u ah walaal muuqaalkana si fiican waxa ku cisho si aad u fahantay waana muhiim inaad si fiican waraysi shaqo u taqaano waana meesha guusha keenaya qof walba wuxuu ku guuleysan karaa interview haddii uu si sax ah isku diyaariyo marna maskaxda ku hayo diyaar garowgu waa mudnaanta koowaad aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kama daashid in maalin waliba aad ka fikirto cabsida ka haysato dadka hor hadalka sideed kalood uga bixi kartaa oo aanan ahayn inaad barato habka loogu dhiirado kusoo biir kooraskeena fariiga ah ee public speaking oo ka saarayo cilad waliba oo keenaysa inaad baqato hadalka kugu adkaado isla markaana aad soo jeedinayso hal shay waxaad ku baranaysaa xeelado fudud oo ku gaarsiinaya isku filnaansho dhanka fagaara ka hadalka ah waxaad ku heli doontaa shahaado iska diiwaangeli galaysana academy adigoo soo raacaya batonka hoose WhatsApp-ka